المواعظ والهدى حكم علينا حفظها حتى نعيش ونسعدا حتى نعيش ونسعدا. أسبابته ugu muhiimsan ee carruurta loo dhalo ahdaaftii ujeedooyinka ugu muhiimsan ee carruurta loo dhalo waxaa ka mid ah in aad camalkooda intifaacsato oo ducadooda aad intifaacsato geeridaada carruur buu dhalay gabdhuu dhalay wiilal buu dhalay markuu dhintay kadibna waa u soo ducaynayaa ilaah hooyaday u dambi dhaaf oo aabbahay u dambi dhaaf oo waalidiinta u dambi dhaaf oo awowyo u dambi dhaaf oo eedooyin u dambi dhaaf oo habaryaro u dambi dhaaf waa soo ducaynaya ilmaha ducada uu ducaynayana waa camal ruuxa u soconaya geeridiisa kadib laakiin nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam waladkaasi waa inuu saalix maxaa la dhahaa waa ilmo ilaahay yaqaana ilaahayna caabuda sababtuna waxa weeye ilmuhu kasabka waalidku ka mid yahay isagaa tarbiyeeyey isagaa ilaahay ku xidhay isagaa diinta baray isagaa tawxiidka baray isagaa sabab u noqday ilmahani inuu noqdo ilmo wanaagsan saas daraaddeed inuu camalku qabriga ugu socdo waa mudan yahay wadaalika fadlullah keliyata maaha in badanoo inaga mid isaan ku fikirayno markaa daciiftaha kuu shaqeeyeen ha ku wadwadaan ha kuu shaqeeyeen ha ku biilaan maya wax ka weyn baa jira wax ka weyn baa jira maanta adduunka korkiisa haddaad ugu baahato cid badanoo wax ku tarta waad heli cid badan oo aad wax ku tarta inaad heshaa laga yaabaa laakiin meel waxaa jirta cid kuu soo gurmanaysa aysan jirin meeshaa iyadaa inaad carruurtaada u diyaarsato iyo ducadoodaa loo baahayay carruurta tarbiyee qur-aanka ku anqari bar qur'aanka kariimka allahooda ku xidh diinta bar dad saalixoo wanaagsan ka dhig xaqa rabbigood ha garteen xaqaaga markaasay garanayaan laakiin markaad dayacdo oo aad xuquuqdii rabbigood bari weydo oo aad adduunyo basa kala shaqayso adigana kuma yaqaanaan ilaahayna ma yaqaanaan cuquubayna kugu noqon doonaanoo maalinta qiyaamada inaad wax ka hesho iska dhaafe adaa lagu soo istaajin doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara kullukum raacin wakullukum mas'uulun can raciyati adaa lagu weydiin doona maxaasaa u yeesha marka awlaadaada waxaad ka dhigtaa awlaad saalixa kula dadaal si ay adduunkana ku anfacaan آخرنا أظن انتفاع سطو قبرك يوحي كذا بيعيك وأنفعان أو ولد صالح يدعو كلمات خالدة فيها المواعظ والهدى حكم علينا حفظها حتى نعيش ونسعدا حتى نعيش ونسعدا.